السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جانال كمركلة السود وهذا أدي هذا ومهتسنتين ما أنت وثلاثة وأنا لحي لباتنك بيش سديداد أغسطس سنة كلا بدأ كون إيشان يلا باتنك مقال كانوا حربا إن ندخل وداقو ورنينكي هنديجاها ودada highwayga Florida Utah-ka ku sameeyo 3 qof oo cadaanka dilay dhibaato weyn ayuu u soo jeeday dadka sharci la'aanta ah ee taraagada ku wada gudaha wadanka Mareykanka. Haddaba gobolka Florida haddii aad wadanka sharci darro ku joogto oo aad taraag wado haddaba gobolkaas ha isku aadin laga bilaabo maanta. Sababtu maxay tahay waan idin la wadaagaya. Ninka Hindiga ah goboladii uu ka soo qaatay leysinka oo dawladda federaalku muddo 30 maalmood ayay siisay cabashada dawladda federaalka ay qabto inay uga soo jawaabaan haddii kalena lacagaha dawladda federaalku ay siiso in laga jaran doono goboladaas saddexda oo ah gobollo dimuqraadi ah. Haddaba arrintaasi ayaan idin la wadaagaya iyo sababta gobolka Florida uu qatar ugu yahay dadka sharci la'aanta ah ee taraagada wada haddii ay aadaan. Arrintaasi ayaan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada. Umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas 1 hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana luweyn karo xilliyada salaada. 2 gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka. 3 baridda qaabka loo guto acmaasha umrada. 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin. 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha. Haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona. Wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9665959284 mahadsanidin. waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada. maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah Qur'aanka, hikaada, axaadiista, ducooyinka, tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha, tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada. qaabka waxbarashada dugsigaarina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan. waxaad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda. Waxaan ogay ninkii Hindiga ah Harjinder Singh oo 28 jirka ah 12 bishan isagoo taraag wada highway Florida uu isku dayay Utah inuu ku sameeyo kadibna gaari wadada kala ku socday oo trailehiisii bartamaha ka galay 3 qof oo saarneen ay ku dhinteen. ninkaasi markii baaritaan lagu sameeyay waxa la ogaaday luqadda Englishkan inuusan aqoonin, calaamadaha wadooyinkana inuusan aqoonin. waa la xiray hadda damaanad waa la diiday in lagu soo daayo walow jiro hadda codsiye saxiixyo la ururinayo 3 milyan ku sii dhow lagu codsanayo in xukunka laga qafiifiyo laakiin xabsi ku yaala Florida ayuu hadda ku jira. arrintaasi marka waxay sababtay in gobolka Florida tilaabooyin dheeraad ah uu qaado. ninkaasi leysinka markii hore waxa uu ka qaatay gobolka Washington State sanadkii 2023 Florida ayaa looga cusboonaysiiyay sanadkii 2024 New Mexico 3 bishii July ayaa lagu istaajiyay isagoo xawaare ka badan xawaaraha gawaarida lagu wado ticket ayaa lagu siiyay laakiin booliska istaajiyay luqadda Englishka waxba ma uusan ka weydiino waxay ahayd ba in uu leeyahay ninkaasi in uu ka joojiyo wadista gawaarida taraagada ah. marka dawladda federaalku tilaabooyinka ay ka qaadayso goboladaas gadaal ayaan idin kala wadaagi doonaa laakiin gobolka Florida maxaa tilaabo ay qaadayaan. shalay mas'uuliyiinta gobolka Florida shir jaraa'id ay qabteen oo ugu horeeyay xeerlaaliyaha guud ee gobolkaasi ninka la yiraahdo James Othmeyer iyo ninka madaxda ka ah dhinaca beeraha waaxda beeraha ee gobolka Florida waxay yiraahdeen goobaha weyd stationada ah oo gawaarida culayska ay wadaan lagu miisaamo gawaarida badqabkoodana lagu jeegarayo in gaariga socda ee xaaladiisu ay wanaagsan tahay gaari wadada lagu aamini kara uu yahay in hadda xarumihii weyd stationada oo gawaarida culayska ay wadaan iyo lagu baari jiray iyo xaaladaha gaarigaasi in hadda loo bedelay ba xarumo immigration. haddii lagugu istaajiyo goob weyd station waxa lagu weydiin doonaa leysinka aad wadato ma qof sharci la'aan ah tahay luqadda Englishka ma taqaana waxyaabahaas oo idil ayaa lagu weydiin doonaa. haddii aad leysin wadato Soomahan horta oo sharci darro tahay oo leysin taraagna awado waa laga qaadaya isla markiiba ICE ayaa lagu dhiibaya. macnaha hal masaafuriye caadi waa adigoo taraag wada oo sharci la'aan haddii aad gobolka Florida aad macnaheedu waxay tahay hal masaafuriyo dadka Soomaalida ah ee taraagada wada ee sharci la'aanta ah
walow hadda inta badanba gobolada Mareykanka gobolada Republicaankaba ha ugu darnaadaane luqadii Englishka gawaaridii la isaga dejinayo oo la leeyahay gaarigan ma wadi kartid hadana luqadii Englishka aadan aqoonin haddana gobolka Florida kuma sii jiro haddaba shalay shirka jaraa'id markuu qabtay xiriiryaha gobolka Florida James Othmeyer oo mas'uuliyiin kala duwan ay ku sugnaayeen goobta waliba Goobwood Station ay ku qabteen shirka jaraa'id waxa uu sheegay in xabiinimadii xadana ay qabteen nin kale oo isagana ay ku qabteen degmada la yiraahdo Bay County ninkaas Roberto Carlos Vergara ayaa la yiraahdaa isagana sharci darro ayuu ahaa oo gaasagoo wadanka sharci darro ku jooga ayuu traag waday isagana ICE ayaa loo dhiibay marka waxa uu yiri haddii aad sharci la'aan tahay horta gobolka Florida haddii aan nahay dadka sharci la'aanta leesin ma siino laakiin haddii aad gobol kale ka soo qaadatay ayuu ku yiri leesin oo lagu soo siiyay kama shaqeynayo gobolkeena Florida oo haddii aan ku qabanno adigoo sharci la'aan ah oo traag wado ICE ayaa horey gacanta lagaaga gelinaya haddaba isagoo arrimahaasi ka hadlayay bal hadalkiisi wax yar la daawada Obviously, most people in Florida are now aware of the serious tragedy that happened down in southeast Florida. Someone that never should have been given a driver's license, much less a CDL license to drive larger commercial vehicles, engaged in reckless behavior that took 3 lives. Last night, we saw another example. We were able to arrest an individual who was in the country illegally, who was driving a commercial vehicle in Bay County. The individual, Roberto Carlos Vergara, has been arrested and is now under an ICE hold. There's no telling how many illegal aliens are in this country driving large commercial vehicles and putting American families in a safety risk every single day. And that's why efforts like what Agriculture Law Enforcement Commissioner Simpson are doing are so important. We have got to protect our American citizens from the dangers of the open border crisis and illegal aliens that may be engaging in behavior that injures people. So we've made this arrest last night. We're continuing to crack down and interdict others that may have gotten into Florida from sanctuary states. As a reminder, in Florida, you cannot obtain a driver's license if you are an illegal alien. And if you have obtained a driver's license from one of these sanctuary states like California, Washington, or in the case of the driver from last night, New Jersey, those licenses are no good here. gobolka Florida waxay sheegeen in sharciga la yiraahdo 287G oo dawladda federaalka ah iyo ciidamada goboladu inay wada shaqeeyaan ah oo immigrationka ay ka wada shaqeeyaan inay dhaqan galin doonaan isla markaana goobaha gawaarida taraagyada ah looga baaro in cayayaan ama xoolo nool ama waxyaabo khatar u keeni kara deegaanka ay wadaan in lagu baaro ay tahay oo waaxda beeraha ee gobolka Florida ay maamusho sidoo kalena in lagu baari doono dadka sharci la'aanta ah ee taraagyada wada marka arintaasi waa arin qadar ah luqadda Ingiriiska waa lagu weydiinayaa haddii Florida lagugu qabtana adigoo sharci la'aan oo taraag wadana macnaha ICE ayaaba horey gacanta lagaaga gelinaya dhinaca kale maanta waxa sidoo kale shir jaraa'id qabtay saaka wasiirka gaadiidka ninka la yiraahdo Sean Davey isaguna waxa uu sheegay in gobolada ay ka mid yihiin California, Washington State iyo waliba New Mexico oo ninkaasi Hindiga ah oo 3 qof dilay isagoo wadada U-Turn-ka ku sameynaya oo labana leesinka ka soo qaatay midna bishii July 3deedii waliba wax ka yar 10 maalmood markii uu dhaqan galay sharciga luqadda Ingiriiska oo 25kii bishii June dhaqan galay lagu qabtay isagoo speed gareynaya oo xawaare ka badan gaariga ku wada isla markaana ticket la siiyay laakiin luqadda Ingiriiska waxba laga weydiinin in dawladda federaalku ay muddo 30 maalmood siinayso in cabashooyinka dawladda federaalka ay ka qabto ay wax ka qabtaan haddii ay wax ka qaban waayaan cabashooyinkaasi dawladda federaalka ay qabto lacagta la siiyo ayaa laga jaraya gobolada waxa la siiyaa lacag oo dawladda federaalka ay siisaa sida ay shilalka iyo ay uga hortagaan wadooyinka ay boolisku ay amniga u sugaan lacagahaas marka gobolka California 30 milyan ayaa dawladda federaalku ay siisaa Washington State 10 milyan ayay siisaa New Mexico 7 milyan ayay siisaa marka wasiirka gaadiidku waxa uu yiri lacagtaasi waan ka jaranaynaa 30 maalmood gudahooda cabashooyinka aan u gudbinay haddii ay ka soo jawaabi waayaan arrintan wuxuu yiri waa wajiga koobaad haddii marka wajigan koobaad ay wax ka qaban waayaan tallaabooyin kale oo dheeraad ah ayaa jira oo aan qaadayno marka darawalku wuxuu yiri haddii uusan luqadda Ingiriiska uusan aqoonin calaamadahana wadooyinka ku yaala uusan akhrin karin waxa uu qatar ku yahay dadka shacabka ah ee wadooyinka la isticmaalaya sidaas darteed ma ahan gawaarida taraagyada ah in uu wado wasiirka gaadiidka oo saaka shirkiisa jaraa'id ka hadlayayna waxa uu yiri
we at DOT and federal motor carriers, we are not going to tolerate states that don't comply with the rules that come from this department. We've identified several states that have not been in compliance. That would be Washington, California, and New Mexico. Those are the three states that have not complied with this rule, which, by the way, this driver in Florida had received a CDL in Washington, California, and was pulled over in July for speeding, and no doubt couldn't speak the English language. Law enforcement in New Mexico did not take his rig out of service. So this one driver touched all three states. Based on our review, they are not complying with our rule. And so phase one for us, which I'm announcing today, is we are going to give these states 30 days to come into compliance with truck drivers speaking proficiently the English language, or we're going to look at federal funding that they receive under the Motor Carrier Safety Assistance Program. So I believe California is 30 million, Washington is 10 million, and New Mexico is 7 million. These are millions of dollars. By the way, this is phase one. There are other actions that we can take to make sure states comply. And hopefully in the next 30 days, we won't have to withhold any money from them. But if they don't come into compliance, we will start with withholding this money, and then we will take additional steps to guarantee compliance. And this is not, just to be clear, this is not just about saying we have some obscure rule that we want them to comply with, that truck drivers speak English proficiently. This is about keeping people safe on the road. Your families, your kids, your spouses, your loved ones, your friends, we all use the roadway. And we need to make sure that those who are driving big rigs, semis, can understand the road signs, that they've been well trained, and that when they're pulled over by law enforcement, they're stopped by law enforcement, or there's a crash and law enforcement responds, they can effectively communicate what they have on their rig. There might be a history that they have to be able to communicate to law enforcement when they're pulled over or there's an accident. And if they can't do that, that creates a significant issue for the traveling public. ugu dambeyntiina aqalka cad ee Mareykanka hortiisa maanta waxa calanka Mareykanka ku horgubay nin cadaana isagoo waliba ku qaylinayay qodobkeena koobaad ee dastuurka ay doonayaan in naga hor istaagaan shalay waa kii Trump saxiixay wareegto uu leeyahay qofkii guba calanka Mareykanka hal sano ayuu xabsi mutaysanaya marka ninkaasi cadaanka isla markiiba boolis ayaa u yimid oo xiray marka waxaana jira qodob dastuuri ah oo difaacaya dadka haddii ay calanka gubaan oo sanadkii 1989 maxkamadda sare ay ogolaatay sida aan shalaydi sheegay marka wareegtadii shalay Trump uu soo saaray oo mamnuucaysa in calanka Mareykanka aan la gubi karin isla maanta aqalka cad hortiisa ninkan cadaanka ayaa calanka Mareykanka dab ku qabadsiiyay isla markiibana booliska ayaa u yimid oo halkaasi ku xiray waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordhay aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sidaa iyo nabadgelyo